السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانت مميل وبدجوكتان كسو دوادا maanta waxaan idin hayaa 7 xigmadood kuwaasoo markaasi ku saabsan nolosha. Haddaba waxaan filayaa inaad ka bogan doontaan insha Allah. Marnaba been ma noqoto run, qaladna ma noqdo sax, xumaan ma noqoto wanaag, xitaa haddii ay aqbalaan ama ay rumaystaan dad badan. Yeysan ku gelin kalsooni zaid ah ama isdilo badan. goortii qofku yiraahdo waan ku jeclahay, su'aasha saxda waxa ay tahay ilaa iyo goorma. sababtoo ah sida xilliyada sanadku isku bedbedelaan ayay dadkuna isku bedelaan. goortii xumaan lagu sameeyo dadka daciifka ah way argoostaan, dadka xoogan way cafiyaan, dadka aqliga badanna way hilmaamaan. qofna ma oga halganka aad ku jirto, qofna ma oga murugtaada, qofna ma oga xanuunkaaga, laakiin dhammaantood waxay ogaadaan oo ay sii wadaan haddii aad samayso qalad. dadka qalbiga fiican wax badan bay dadka caawiyaan, wax badan bay bixiyaan, si dhab bay wax u jeclaadaan. haddana waxaa soo gaara waxyeelada ugu badan. waxay awoodaan inay ku qariyaan kun dareen oo murugo ah hal dhoola caddayn oo farxad ah. ku qanacsano waxa aad haysato, hana ka fikirin waxa aadan haysanin. waxa aad haysato waxa ay ka timaaday nimcad Alle, waxa aadan haysanin oo kaa maqanna waxa ay ka timid xigmad Alle. mararka qaar dadka kumanaan meel ayaa ku siin kara farxad aadan ka heli karin kuwa dhinacaaga jooga.